السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mid kale oo kamid ah qisooyinka aan idinku talagalnay toddobaadkan. Haddaba qisadeenu toddobaadkan waxa ay muhiimadda saari doontaa arrimaha qoyska. waxaan hubaa inaad si weyn wax uga baran doontaan qisadan. haddaba qisadan sida lagu soo warramayo waxay dhacday sanadkii 2013 ayay soo bilaabatay. haddaba ilaa waxay socotay 2021. haddaba qisadan iyo hawsheeda intaynaan guda gelin marka hore waxaan doonayaa inaan idiin sheego in qisooyinkeena ay yihiin qisooyin aad uu uga shaqeeyay saxufiga la yiraahdo Abu Dalal al-Hamarani. buugiisa qisooyinka la yaabka leh ayuuna ku qoray. haddaba qisadan waxay ku bilaabanaysaa wadanka Urdun. in ganacsada oo la yiraahdo Yaasir daadiisa lagu sheegay 62 sano jir ilaa 61 sano jir. adi 60meeyada daadiisu meelaha ay ahayd ayuu leeyahay qoraagu. ninka wuxuu qabay naag waxay u dhashay 3 caruur ah. wiilkiisa weyn waxa la yiraahdaa Amaar waa 17 sano jir. waa nin weyn daadiisa ka weyn. markaa si fiican u qadayso oo aabaha lacag haysto dadku xogaa waad ka weyntahay. marka wiilku aad ayuu daadiisa uga weynaa akhlaaqiyan waxbarashadiisa waa nin aad u fiican u ahaa. odagii marka islaantii uu qabay ayaa duqowday, macnaha waqtigii dhalmada ayay dhaaftay. odagii marka sida caadada u ah odayaasha carabta iyo kuwa kaleba Soomaalida laftirkooda odagii xariiftan u aaday. gabar yar oo qurux badan oo 20 jir ah ayuu reerkeeda ka doontay. dee waa oday isugu toosan tahay, baashu ay habaysan tahay. waa la siiyay gabadhii uu soo guursaday. sidaa marka wuxuu ku leeyahay 2 xaas. xaaskii hore oo caruurta waaweyn u dhashay iyo gabadhan yar ayuu soo guursaday. xaalkuu degan yahay, noloshu way degan tahay, wax dhibaataa ma jiraan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la sheegay in la waayay wiilkiisii weynaa ee Amaar. meel uu jaan iyo cirib dhigay wiilkii waa la waayay. saaxiibadiisa weydii meel kasta gal. odaygii sidee wax u jiraan? cunugeygii yaa ka haystay? cunuga waa cunuga igu weynaa ilmaha, waa midkan u diyaarinayay ganacsigayga iyo waxayga inuu maamulo. wiilkii waa la waayay. hay-adaha ammaanka ayuu xogtii la wadaagay. aabbihii wuxuu yidhi wiilkayga oo daadiisu intaas tahay oo sawiradiisu kuwaan yihiin waan la ahay, fadlan hala ii raadiyo. hay-adihii ammaanka wiilkii waa la raadiyey waa la waayay. sanad markay kasoo wareegato oo wiilkii la la-yahay raadkiisa xataa lamaayo ayaa oday islaanta uu qabo weyn abti u ah wiilka. odaygii abtiga u ahaa wiilka ayaa wuxuu yidhi Yaasir qofaa isoo wacay waana hurdaysnaa. haye xalay wuxuu iga soo wacay Suuriya, number Suuriya iga soo wacay. haye wuxuu igu yidhi abti aniga waaye Amaar, Suuriyaan aaday, yaa la ii walwalin, waa maqarahay. oo igu dhahay teleefonkii wuu damiyey. markaan soo kacay telefoonkii ku celiyey, ilaa saaki ku celiyey, telefoonkii wuu dansayay. marka sidaa ula soco. telefoonkii la qaaday, hay-adihii ammaanka la wadaagay. wiilkii intuu ka soo hadlaa la yiri telefoonkii nag waa la waayay, waa laga quustay. wax raada lama hayo weli. saraakiishii ammaanka meel ay wax ka bilaabaan ilaahay, wiilkii raadkiisa lama hayo. sanad iyo 4 bilood markay marayso ayaa magaalada Ammaan banaankeeda nin ari wata oo ari meesha ku raacanay ayaa wuxuu arkay eeyaha
duurka gala oo meel ku xoonsan oo qaylinaya markuu soo maray wuxuu arkay jumjuma la yiraahdaa madaxa qof bini aadana oo qalfoofa iyo lafihii wixii meesha ku arkay ninkan markuu arkay wixii inay wax bini aadam yihiin eeyo ka kala cadeeyay booliiskii oo la soo hadlay booliiskii waa soo carareen meeshii maadeen lafihii waxay qaadeen waxay geeyeen meel caafimaad si bal loo baaro dhakhtarkii wuxuu yiri horta dhowr arrimood markuu baaritaanka ku sameeyay wuxuu yiri ninkan xubnihiisa waa la jarjaray macnaha lugta kaligeed 4-5 mar la jaray gacanta 5 mar la googooyay kan suqaara laga dhigo yiri haye da'diisuna qiyaastii waa 15 ilaa 25 cilmiga caafimaadku markuu garan karaa lafaha da'dooda intay jirto waxa soo dhan horumar ilaahay bini aadamka uu gaarsiiyay waay marka da'dii uu qiyaasay wuxuu yiri 15 ilaa 25 meelahaas ayuu jiraa waana dakar uu ahaa macnaha lab uu ahaa macnaha nin rag uu ahaa da'diisu intaas u jirtay markii ninkii baaraha ahaa oo booliiska ka tirsanaa wuxuu yiri markaa meeqo asna marka iyadana waa la ogaan karaa macnaha inta lafahan ku jireen godkan way qiyaasi karaan marka waxay yiraahdeen sanadii bar ilaa 2 sano meelahaas adi 2 sano ilaa 1 sano inta u dhaxaysa meelahaas ayuu lafahan meesha ku asnaayeen okay marka sanad iyo bar ilaa 2 sano wiil dhalinyaro ah da'diisa u dhaxayso 15 ilaa 25 yuu ka maqnaa faylkii booliiska dib loogu laabtay waxa la soo saaray Yaasir odaygii ganacsada ahaa Yaasir waa loo yeeray saldhigga booliiska kala yeeray xaafadiisa waa looga yeeray uu yimid waxa leenayo wiil ma ka maqnaa intaas ha booliisku waxay soo heleen lafaha wiil dhalinyaro oo intaas wiilkaagu maqnaa qiyaastii intaasoo kale xabaalna oo meesha ku jiray marka waxaan doonaynaa si aanu lafaha iyo adiga isu keen ogaan haduu lacalla wiilkaaga yahay aan fiirino wiilkayga miya warta tartiiba leh taada wali adiga in lagu baaro DNA laga qaado lafihi la baaro ila isleedii wiilkaagu yahay la ogaado kadib waa inuu qof kale yaa laga yaabaa laakiin anagu taxadarkii iyo shaqadeeniya wadana odaga dhulku ku rafara alla wiilkayga ma sidaana yeelaan wixii laga qaaday خلاص وايس يشان wiilkii Suuriya ku maqnaa lahaa waxa laga dhaxlay caasimada Urdun laga helay Oman odagii waa baroortay wiilkaygi wiil dhalinyaro oo ahaa dib ma laha anaga waxaan sameynaynaa taxqiiq baaritaan laakiin booliiska baarayaasha ahaa waxay yiraahdeen arrinkan waa jariima dambi waaye dambiilaha waa in la helaa meeshii laga bilaabay lahaana lama yaqaan ninkii taliyaha u ahaa kooxda baarayaasha wuxuu yiri hala soo xiro abtiga isagu dad soo ugu dambeyn asagu soo afkiisa kama qiran oo ma dhihin ninkan Suuriya iga soo wacay teleefankiina uu damiyaa soo ma dhihin ha المتهم الأول نكاس واي إذا سنها كوبات وحتى عن حينو والنكاس وعي كلو صبح الدونا أي وطلع أضي قرقي سألو قلت والله لا صوكعي صلق يا لكان سيدي محاود شالي العنق يا دلي واي ويلك أبتقوا وخيت لا حول ولا قوة والله العظيم أنا حتى مالو جوغ حتى وين تليفون كاش كويسو شاقينا أبيه ساور قليي تليفون كينا ودن سنة وح كلا أو أنيقا ما هو تالي إنه ويلكو الساقع أها عدكيسا أنا وهرد أيونا وضي وين نواهي لكن
codka intaasuu fariinaan ka qabtay adeer marka waxaa la yidhi ma lagu sii deynayo waa xarnaanaysaa ilaa arrintan baaritaan rasmiya loo gudagalay war aniga maxaa layga rabaa aniga intaas yartaa oo aan aabihii iyo dadka la wadaagay miyaa laygu haystaa aniga wiilka walaashay dhashay sidee u dilayaa waxaas aday ku taala adeer annaga shaqadeennaa qabsanaynaa kiiskan hadduu kugu cadaadana dee aday ku taallaa annaga hadda baaritaankii waa sii wadaynaa weli adiga waxaa tahay laakiin eedaysanaha koowaad damaanadaa lagu daayay oday gurigiisu iska joogay mar alla markii booliisku kuu baahdan waa imaanaysaa lin inta taxqiiqa baaritaanka socdo okay booliiskii waa wax ka bilaabaan male wax kasta waa sameeyeen markii dambe booliisku waxay sameeyeen macluumaadka ayay waxay ku qoreen jariidad jaraa'idka qaar wadamada kasoo baxa gaar ahaan kuwa carabta waxyaabaha fariimaha booliiska iyo dadka ay weydiisanayaan waxaasa meel gooniya looga qoraa joornaalka looga qoraa marka joornaalkia meel geesa waxay leedahay booliisku fariimaha ay dadka la wadaagaan fariimiha marka waxaa lagu soo qoray nin la yidhaahdo wiil maaragtay dhalinyaraha oo la waayay sanad iyo bar ka hor oo maaragtay reer cumaan ah qofkii maaragtay arrinkaa wax ka haya oo xog ka haya fulaan magaciisu saas yahay hata waa kaas ninka macluumaadkiisa wixii qof xataa wax yar ka og fadlan hay-adaha ammaanka hala soo xiriiro okay marka maalin maalmaha ka mida marka ayaa waxaa soo wacay booliiska gabar la yidhaahdo safaax waxay tiri waxaa la yidhahdaa maya samaaxa la samaaxa la yidhahdaa samaax waxay tiri aniga waxaan hayaa macluumaad inta aan ka ogahay wiilka maskiinka ee waa dhintay la yiri ahlan wa sahlan soo dhawow saldhigga booliiska noogu imow waa kaas meeshaa la yimid gabadhii waxay tiri 2 sano ka hor waqtiga wiilka la weynayo aniga iyo wiilka dhowr bilood ayaan waxaan ahayn rafiiq saaxiib aan ahayn haye war ilay baarayaas qalin iyo warqada lagu kala ordaa gabka booliiska markay wax qorayaan qaar faataalayaal ku jira atoo okiyaalaha la dhiganaya asaasaa lagu leeyahay marka ma argagaxay ka tahay lama yaqaan waxaas waa booliiska casharadooda waay iska dhaafaa u bixin waa shaqaysanaya raggaas booliiskii marka waa gabadhii ay dhegeysanayaan gabadhi marka waxay tiri aniga asaga telefoon basaanu iskula hadli jirnay weligeen intaas aragnay 2 jeer ay ahayd waxaan ka sheekaysan jirnay mustaqbalkeena iyo nolosheena aniguna xilligaas 17 jir daadiisoo kala ahaa inkastoo aan weli wax yar ka yaraa marka hawshaasu halkaasay marka martay haye marka macluumaadkaas wiilkaas markii la waayay aniga kadib waa iska guursaday hadda cunugaan dhalay nin kale ay qaba laakiin anigu ninkaa intaasaan ka ogahay wax mushkilada ama dagaal ah ama safar ah oo uu meelaan ku aadaa iyo sheekadan uu dhahay ma jira ani markii la dhahay ninkii waa la waayay suuriya oo kasoo hadlay waa la yaabana ninkan waxaan ka hadli jirnay mustaqbal nolol saan isu guursanayno saan wax u samaysanayno mustaqbalkeena aan ka hadli jirnay markaa waa shoogay tiri ninkii wuu cararay markii la yiri telefoonkiisana aan waayay markaata anigu de mar waa noqday waa iska guursaday laakiin intaasoo macluumaada intaasaan anigu aan idinku kordhinaa inuusan wiilkaas niyadiisa xataa ku jirin inuu xataa maalin safro samaax okay iska baxalin odagiya markaa saldhigga booliisku soo maraa maalin kasta ama maalin dhaaf maxaa cusub uu yiraahdaa wiilkayga arrintiisa maxaa ka cusub
وودنا أذيرو هوشا مركب مالتي دمو صومر وحل كالي بارهي يا فريس وحيري ويل كاغا جبر وشو كان سنجرين oo ay isku da ahaayeen ayaa halka noogu timid gabadha waxa la yiraahdaa Samaax waxay nooga waratay arrinka waana sir gabadhu hadda marwo waayo waa la qabaa marka in arrinteedii inta ka badan macluumaadkeedii iyo waxaasi dadka la ogaadaan lama rabo ninkeeda xataa inuu ninka maadaama uu dhintay xataa inuu iska sanifaa laga yaabo nimanka qaar in dhintay xataa ka maseeraan waxay kala hayaan bale oo laba fiila istaabarayso ninkeega hor waa fiicnaa meeshan markuu ikeero alaabtan ii gidi jiray dileera fiisa istaabaray barka la barakayno ko iska barakaysay barka ninkii marka waxa la yiri arrinkaas dhacay okay yiri marka gabadhaas maxay ahayd gabar yar oo Samaax leeraado telefoon ay ku wada hadli jireen way isjeclaayeen marka arrinkoodu saas waa ninkii maalintii loo sheegay arrinkaas oo saldhigga booliiska uu ku soo maqlay murugadii haysay mid ka daranaaba dul tagtay ninkii wuxuu bilaabay hantideedii waan iibinayaa waxayga waan kala tuurayaa aniga maadaama wiilkayga weynaa la dilay waa shoogay wadankan waa isaga tagayaa waa kaas laba wiil oo la dhalatay oo u yeeray wuxuu yiri dhageysta kullu amwali waa kuwan lacagteedii hantideedii oo dhan waa ka ilmahayga iyo wuxuudaas iyo adika ku maamula kala siiya labadayda xaas waa kaas anigu waa iskaga tagayaa wadankan maadaama wiilkii noloshaydii waxay ahaa laga dilay waxaan isaga qaxayaa meel la yiraahdo Al-Qaahira magaalada Masar iska wadanka Masar magaaladiisa Qaahira iska degaya halkaas xogaa lacag oo aan qaatay meeshaan iska aadaya meeshaan ma sii joogi karo sababtoo wiilkaygi baa mar walba hore mariya okay yiraahdo walaalihiis marka xogaa iska soo nasay bal yiraahdeen marka adiga ilaa 2 sano iska soo joog meesha ad kadib adigaaba iska soo noqon doono waa iloobi doontaa waxaan hadda maalmaha hore murugada waay waxa lagu cab ninkii tikido goostay airportka soo ka baxay booliisku waa qabteen xagee u socotaa leer sax markaas wuxuu yiri arrintan jirta xogaa meeshii wiilkaygi markii la dilay saana dhacay kana dhacay hantideedii oo dhan waa iska iibiyay carruurteedii wixii loo kala qaybiyay ari walaalay uga tagay ninkii baarana la waxa la ninkii wiilka dhalay saasuu leeyahay hal ay soo qabtay nimanka booliiska niman harfan ku jira niman aan caadi ahayn ku jira ninkii la soo qabtay waa loo keenay المتهم الثاني وقبل الأمر حتى هاي إذا سنة اللبات صاحب نكي وياه محال ويلكي ما إذا سنة عديقة وإذا سنة اللبات اللي صاحب ولا هند ذنكي بركاسو وريري محال عاي سيدا كيس صعبة هانتي هذا وقضيسا أديقة أو عرريسا ناشي قال لا شيخ وحن وحا كايلين ما الله صاحب كيس كان وحا كايلين فيري بوليسكو waxay ka shakiyeen ninka waxa la rabaa aragtidaadu marka wax baarayso ama wax aad ogaanayso ina wax walba ka fakartid ninkan aabihiisa ma dili karo hadee kugu qofulanta wiliga waxa ma keenis aabba inuu dilaaya laga yaabaa wiilka inuu aabihiis dilaa laga yaabaa waxa soo dhan marka waa inaad la socoto waay ninkan marka waxa yiraahdaa waxa noo cadaysaa kiiska wiilkaaga oo meel fuulin oo nin adiga maaratay naagta qabta la dhashay u xiran yahay oo kiiskii baaritaan ku socdo sababta wadanka uga guurayso noo sheeg anaga waxa noo sheegin oo dhaashay sidii ninkii loo waday qabababa sheeka dhacday marka yaabka booliisku yaabeen waxa ka daran yaabka shacabka Urdun iyo adduunka markii sheekadii loo gudbiyay yaabeen sheeka haday markaba bilaabanaysaa waaba la yaabayba ninkan wuxuu yahay markaas wuxuu nimayo dhageyst aniga meel aan joogo ma garanayo inaan isdilo waxa iga dhiman laakiin al xaqiiqadan sheegay hay ahlan wa sahlan safari subashan kale shak noo sheegaaleer alaabtii bilaawat booliiska qalimaantu alaabtii waxa qoray dhaayay ninka wuxuu yiri qisado kaamil ahaan idin siinaya kadib ma shartaanigay toogta xara idinkeedii tala haye
aniga waayo dhaadhinka wiilkayga dilay. laa xawla walaa quwata ilaa billah. u fiirsada ninkii ooyaayay dhulka ku gadgadoobaaya alla wiilkayga lahaa hadda wuxuu leeyahay aniga waay qaatilka. ninka qaatilka ah oo wiilkan maskiinka a dilay jarjaray waa aniga, waa wiilkiisii. sabab marka muxuu dilayaa? markaasuu wuxuu yidhi niman yahow sababta aan hadda igu qasbaysa inaan cararo aan idiin sheegayaa. haye wiilkayga waxaan u dilayay inuu dembi iga galay, laakiin waxaan ogaaday inuusan dembi lahayn. maalinkii saldhigga booliiska aad iiga waranteen inuu gabar xiriir lalahaa la yidhaahdo Samaax oo da'diisa ah oo haddaba joogta oo cunug haysata ay meesha idinkugu timid. markaasaa aniga go-aankan gaaray. haye ma hiya qisatu Samaax dheer ninkii baara Samaax maxaa raadka ay kugu yeelatay noo sheega leeyahay sheekh. markaasuu wuxuu yidhi aniga xaas weyn aan lahaa wiil caruurtan oo wiilkayga ka mid ahaa ii dhashay. xaaskii marka dhalmadiyaa ka dhammaatay gabar yaraan soo guursaday 20 sano jirta. gabadhii haddee aniga iyadu isku da'manayn, aniguna 60 jiraan ahay, gabadhuna waa 20 jir. nin la ciyaaray rabtaa, nin u sheekeeyay rabtaa. anigu dee waxa ay samaynayso wixii aan soo dhaafay waa waxaas tabar u maayo. haye marka waxyaabo badanoo marka waxaa jira gabadhii aan ku kaafin waayo yidhi. haye marka gabadhii rabitaankeedii iyo aniga rabitaankeygiina iskuma miisaan ma noqon karaan. haye waxaa i galay marka masayr aan caadi ahayn ay galay. ama ku khiyaantaa intaa maqan tahay dee odayga waa lagaa qaraabtaa isleeyahay asaga baash hawshii hadduu si fiican u gudan waayo shaki badanaa galayo odayga bogtay. marka odayga wuxuu leeyahay marka shakigaas ay galay goormee nin ugu kortagi doontaa, goormee albaabka ka wixii oo dhan shaydaanka wixii aan galay. yoom min al ayaam wiilkayga oo aan isla joogno ayaa wuxuu la hadlayaa gabar. wuxuu leeyahay aabba waxar isugu yiri meel meeshaan istaagsan aabiis u ixtiraamay. Samaax xabiibti haa ule odaygi Samaaxda guriga u joogto moodaa ilaa cunuga Samaaxda gabadha yarta waa iska magaciya israacay. odaygi wiilkay uga dhigtay marka allah ninka guriga ku dhaafay gurguradka ku galay ba wiilkaaga hadduu ii noolaaduu leeyahay. laa xawla walaa quwata. odaygi wiilkii uu iska dhaxay. wuxuu yiri salaanta guriga ku joogto yar 20 jirka ah iyo wiilkan 17 jirka oo isku da'da camal ah waaba xariftan culusa meesha ka socdo gurigaaga ciyaar khatar laga dheelaa. odaygi wiilkaan uu iska dhaxay. kaaga daran wiilkii ma bawareysanayo ma dhahayo maxaa kala dhaxeeya xaaskayga. wiilku uu sheegi lahaa wuxuu dhilaa baxaaskaaga ma aha gabadhan Samaaxa leeyahay magaceeda saana waatan meesha si degantaa. odaygu iska degilaa mugd. odaygu wuxuu yiri wiilkaaga si u weydiinaa. wuxuu yiri wiilkaan ka takhallus ana siriyo shaydaanna waa igu qaaday. haye waa kaxay meel aan guri ku leenahay tuulaan tagno yiri. meeshii aan geeyay waa seexanay asagoo jiifaan gowracay yiri. waa jarjaray hilibkiisa qaaday meesha hadda laga soo helayo waa meeshan ku xabaabay yiri. laa xawla walaa quwata. oo wiilkaaga miyaa sidaa yeeshay? haa wiilkaysaas sababta u yeeshayna taarikaas waa shaki. laakiin hadda waxaan ogaaday wiilkaygu inuusan dambi lahayn, xaaskaygana uusan ii daba marayn, ee gabadha xaaskayga ah iyo gabadha uu shukaansanayay isku magacay ahaayeen. aniguna meeshaas ka raacay. dhowr jeerna magaca Samaax xabiibti waa ka maqlay. markaas dhiigu igu kariyo yirooday. markaas ninkii markay oo meesha baaraha ahaa madaxu gacanta saartay. wiilkaaga ma waxa uga shakisay xaaskaagii? haa. oo adan waliba wax xaqiiqa ku hayn? haa. ma sidaas u jarjarto u dishay? haa. laa xawla walaa quwata illaa billah. waxaaska hadda saan uga masayrays adeero maxaa qoofta ku galiyay? tabartaada ma aha. tabartaada ma aha gabar yare maxaa ku geeyay? hadda idinka idin weydiinayo maxaa ii geeyay? raganimo iska baar. odaygi hadduu gabar yar guursaday iyo waxaas magaalada odayaasha kugu sheekaysta
laa xawla walaa quwata ilaa booliiskii ninkii maskiinka ahaa oo abtiga ahaa iska sii daa. ninkii xataa wuxuu yidhi anaa soo mu'aamaradaas soo maleegay, qof suuriya joogaa lacag u diray, simkaarka laga soo wacay, waxaas waa anaa ka shaqeeyay mu'aamarada abtiga inay bahasha sii fogaato aan gudaha dhan loo malay. haye marka wuxuu yidhi ma hawshaa saasay ku dhacday, wiilkayga gacantaydu ku tagu yidhi. booliiskii waa yaabay. ninkii waa la soo kaxay maxkamadda la keenay, qaadiyaashii ayuu ka hor qirtay. booliiskii waa yaabay qaadigii waa yaabay. wiilkaaga baa gacantaada ku jarjarta. haa eesh xaaskaaga darteed miya? haa. kii waa la qabtay, waxaa lagu xukumay 15 sano yidhahdeen. 15 sano oo xabsiga ayaa lagu xukumay. marka 15 xataa laftirkeeda qaadiga u qafiifiyo macnaha aabihiis uu yahay iyo wax saasa, laakiin xabsi daa'in lagu xukumaa la rabay. marka arrinkaas marka sidaasaa marka qisadaasu ku dhacday. waxay ahayd runtii qiso aad iyo aad cajiib u ah. haddaba qisadan maxaynu ka baran karnaa? maxaynu ka ogaan karnaa? shimbirkiisuu la buubaa ayay waxay yidhaahdaan soomaalida, fanaaniintii iyo suugaantii soomaalida. marka shimbirkiisuu la buudaa maxay oday 60 jira, gabar 20 jira, maxay iska fahmayaan? waxba iskama fahmayaan. habar 50 jira iyo wiil 15 jira ama 20 jira, maxay iska fahmayaan? waxba iskama fahmayaan. laakiin qof walba da'diisa iyo marxaladiisa iyo sidaasay baasha ku qurxoonta. maanta oo dhan shakiyaa nafta kaa qaadaya. gabadhii yarayd madarasada nin ka fiiriyey maxaggay soo martay. sheekadaas marka sheeka runtii aad iyo aad u naxdin badan ahayd. wax badanna laga faa'iidi karo, laga baran karo. aad baa ugu mahadsantihiin sida aad mar walba sheekooyinka markaan soo dhigo fikradiina uga dhiibataan. waxay idinla tahay waxa laga faa'iidi karo, waxay tahay in laga barto aad soo qortaan. haddana noo soo qora, like gareeya sheekada. channelkeena haddaad ku cusub tahayna subscribe-ka ka iloobin. youtube-ka, facebook-ana follow gareeya. asxaabay meel kastoo aad joogtaan iyo qiso kale haddii alla idmo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.